wasiirka biyaha Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdille ayaa ku bogaadiyay wakaaladda biyaha Burco horumarka iyo waxqabadka ballaaran ay ku talaabsatay kuna tilmaamay mid ku dayasho mudan. wasiirka oo hadalkan ka jeediyay xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigay qalab iyo gaadiid cusub oo soo iibsatay wakaaladda oo lagu qabtay xaruntooda. maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Ibraahim Yuusuf Jirde oo ka hadlaya waxqabadka wakaaladdu ay ku talaabsatay ayaa waxa uu yidhi markaan iminka ka bilaabo sanadka kan waxaanu soo iibsanay iminka oo arkaysaan beebka halkan yaala oo 9 kilomitir waxa kale oo isaguna kamid ah shiin 350 kFA waxa kamid ah alaabta halka ku moorgoraysan oo hay'adda TS la yiraahdo ceelashay qoday qalabkeedii waxa kamid ah gaari dhayna oo ay leedahay wakaaladdu oo waxa kamid ah gaariga Land Cruiser ka halka yaala spare parts-inadii waaweynaayo hore waxqabadkeega waxa kamid ah naadiga kubadda cadka ee wakaaladdu ay leedahay ee fadhiya waxa ugu dambeeyay 4 bilood inaanu bixino xuquuq shaqaale 320 milyan sanadkii 2010kii waxyaabihii qabsoomay waxa kamid ahaa beeb gaaraya 28 kilomitir in la soo iibshay waxa kamid ah gaariga wiish waxa kamid ahaa waxqabadka deyntii taagneyd ee ogeydeen xafladii hore aanu ku sheegnay oo berigi hore ahayd 980 milyan ahayd oo sanadka tagay aanu 10,224 dollar bixinay deynta waqtiga taagneyd ee 980 milyan ahaydna maanta 940 milyan baa ka harsan xuquuqda shaqaalaha ee aanu bixinay sanadkii 2010kii waa 193 milyan weyn. wasiirka biyaha Soomaaliya Xuseen Axmed Cabdille oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladiisii number qaantaanka ay maanta intii aan joogay wax lagu faani karo inay qabteen oo muujiyeen dadaalka ay muujiyeen annagu wixii taalkay gacan baan ku siinayaa reer Burcowna idinkuna taalamida ayaan idinka rajaynaa inaad la qabataan. maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Xoday iyo badhsaabxinka gobolka Togdheer Master Ubaxle ayaa ka markacay wakaaladda biyuhu ay dabooshay baahidii biyaha magaalada. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyo marti sharaf badan oo halkaasi ka hadashay ayaa dhammaantood soo dhaweeyay waxqabadka wakaaladda biyaha waxaana halkaasi kooxa fanaaniin ay ku soo bandhigeen masrax riwaayada soo jiitay marti sharaftii ka soo qayb gashay. wasiirka biyaha ayaa isaguna shahaadooyin guddoonsiiyay Cumar Cabdi Axmed oo madaxa baananka gobolada bariga Soomaaliland isu duweesha waxbarashada iyo waqaafta iyo xubno kale kuwaasoo kaalin ka geystay horumarka wakaaladda. waxaana wasiirku ugu dambeyntii u dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu kordhiyay wakaaladda biyaha Burco. Kays Axmed Digaale, Hon Cable TV, Burco.